Casey Shire Hair Care waxa waaye daawada ugu horeysa ee Soomaali soo saartay laguna soo saaray wadanka Jarmalka soona ogolaaday wadanka Jarmalka waxaana loogu talagalay timaha daadanayo cambaarta bidaarta cuncunka iyo waxyaabaha la midka waxaana isticmaalay kala rag dumar iyo ilmaba muswarada u jeedaan wadad soo isticmaalay before after in muddo oo gaaban bad ku arkaysaan isbedel aad u weyn daawadan waa 100% natural ama dabiici waxaana ku jiro minerals vitamins oils essential oils waxa la yiraahdo oo kala duwan isbedelka weyn sida ugu dhaqsiyaa badan ayaad u arki doontaa nagala soo xiriir nambarada ayo informationada oo idinku aad ku arkaysaan shaashada waana in sugeynaa ku soo dhawaada Casey Shire Hair Care Company. Hey, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalay ku soo dhawaada channelkeena Xasi Hooyo. Oh my god, lipstick iga gaaray. Oh my goodness. Wa idin salaam guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And inshallah bidmillah kareem maanta waxaan rabaa inaan idin kala hadlo thinning timaha oo qafifay iyo timaha oo ay sheegeen traction alopecia ku dhacay iyo timaha ku dhacay maxaa la dhahaa ay sheegeen diffuse alopecia, okay? And so traction alopecia waxa waa timaha oo mataqaana intaan temple-ka soo ruqay ma ka hadlay soo go'aya soo ruqay salka ka soo ruqay oo sidaan oo kale u qaaban haddii meelahan iyo sanxayahan ma garanaysaa this is traction alopecia maxaana keenayo tinta taakada lagu dhuujinayo tinta mataqaana la dhuujinayo maxaa la ii sheegana dabida aad oo dhulka ku dhagan yani saaka ku dhagan yani tinta wax walba saa marka u xirta tinta salka ka soo baxaysa oo soo baxaysa iyadana markay soo baxdo halkaas way banaananaysaa so that's traction alopecia and maxaa la ii sheegay diffuse alopecia waxaa la dhahaa tintoo daadatay madax dhanka wada daadatay tinta madax dhan ay ka wada daadatay waa garateen meel kastay ka daadatay markay daadatan way qafiiftay salka yaa la arkayaa sida video surkaan oo kaleeto okay. So this is waxa waaye thinning hair ama maxaa la ii sheegay diffuse alopecia so labadoodaba maxaa la ii sheegay see loo treatment loo sameyn karo see loo soo celin karaa tinta number ko waxaad u baahan tahay maxaa la multivitamins if you have multivitamins you have to waa inaad qaad firi horta gudaha nourish inaan ku sameyna waa gudaha ma fahmaysaa waxaa u baahan tahay daawooyinka kaniiniyaasha la dhaho biotin maxaa la ii sheegay zinc maxaa la dhahaa ii sheegana daawada kaleeta u baahan tahay waxa waaye ii sheegan MSM hadda haysatid MSM and I will show you this is MSM okay kana biotin so anyways biotinka timahay u fiican tahay timaha iyo cidiyahay u fiican tahay waxa kale oo u fiican tahay maxaa la ii sheegana iyo jirka iyo haraga biotin aad ugu fiican tahay maxaa la ii sheegana maxaa la MSN-ka jirkeena waxa way sulfate jirkeena ku jiro wuu u baahan yahay so yani aniga labadan waxa u qaata waxa way just for hair and skin mi fahmaysaa by maxaa la sheegad kale yiraahdo ii sheegana MSN-ka caafimaad badan uu leeyahay amna iyo maxaa la hadda ma tataabanayo laakiin maxaa la geedkan la yiraahdo biotinka hal xabo biotin iyo hal xabo multivitamin iyo geedka hadda isku qaadatid gudaha mataqaana horta jirka waxa taqaana waa nourish ku sameynaysaa biyo badan waa inaa cabtaa why because biyaha maxaa la ii sheegana jirkaaga uu u fiican yahay maan ka hadlayna no biyaha aniga biyo badan adiga waxa loo baahan yahay waa ujeeda aniga hadda mar walba biyo ay agyaal waa fahanteen so biyo badan aad u baahan tahay jirkaaga biyo badan uu u baahan yahay maxaa la ii sheegay so jirka gudaha hadda ka aan nafaqa u sameynayna gudahan ka nafaqeynayna insha Allah so maxaa la ii sheegay jirkaaga wuxuu u baahan yahay kaleeto exercise ama massage your hair ama exercise inaad samaysid ama timahaaga inaad massage garaysid waayo massageka waxaa u baahanaa blood flow you need to maxaa la biyo maxaa la waa inaan jirkii mataqaana aan keena dhiig waa inaan keena madaxa waayo dhiigga wuxuu yeelayaa
guys dhiigga waxa waaye waa sidii mataqaanaa ii sheegeen so dhiigga walaalaha waxa waaye waa hadda koor waa idiin soo sheegay dhiigga waxa waaye sidii mataqaanaa biyo camal waaye so biyo madaxii tintiina biyo u baahan tahay waa dhirtii mogtahay so you need to massage haddaa geedkaan oo kale heli karti soo gado ku massage garay madaxa saas ugu massage garay ma garatay so you promoting blood flow mi fahmaysaa waxaa sameynaysaa inuu dhiig madaxa kor imaado salka gudaha madaxa uu dhiig imaado and you have to massage madaxa waa inaad massage garaysaa so mataqaanaa dhiigga u imaado madaxa taasi waa taas midda kale aad samayn kartid waxa waaye maxaa la ii sheegana dhakhtarkaaga u tag haddii dhakhtar aad leeda u tag just go and check out maxaa la dhakhtarkaaga haddii arad anigu ay soo wici kartaa aniga alopecia waa ku dhacay guys labadana hal mar soo kay tagay ma fahmaysaa ani traction alopecia and diffuse ay ugu dhacay ma fahmaysaa labada way isku tageen ani intaan horta waa xiiranta nag baabahay noqotay baabah bye bye itiri xaafadeedii aad inta kale tan aad u qafiiftay so maxaa la ii sheegana video inta ugu horeysa waad aragteen saliideeda insha Allah isoo waca dad ay caawisana waa jiraan insha Allah oo mataqaanaa timihii meesha ka maqnaa usoo saartay because waxa u baahanaa timihii inay baxeen inay soo noqdaan meesha marka saliidaasoo kale dadaad mataqaanaa aad dhowr dhibic aad saas tiraahdo madaxa aad marisid gudaha asaas ugu masaajaysidoo ka bacdeena mataqaanaa aad ku masaajaysid ama mataqaanaa farahaaga aad ku masaajaysid asbuucii 2 mar oo kale gabdhaha asbuucii 2 mar dhaa saliid isaga qasa iska qafiifiya اسبوعي لا مرة سيقوم مثلا مرة كان قايان ويلش وكله تاد بدار اللي هنا إبر إتحي أما قبلها حسان وكله زائد تمها إبر أتحي وكله تيجي every day مرسنا يعني ما فهمتين إن شاء الله لكن تاسو حال مرة أنا عاد مرة السوق عند متقنا أنقول لي يصدر صور يعني قف كستو حنا داور تريد صور يصدر let me see your hair analyze أنكو سميات تنتو دوافيريا مركز جدول أو متقنا قاركو أديق علي لي أصدهاي أوكي قف كان جدول كان قف يعني أياسية ما قرتين so هذا إلو سو حدد definitely waxaan ku siinayaa jadwal iyo waxaan ku siinayaa isaa mataqaana u barsan kartid laakiin tintaadina ay tustid markaad leedahay tinta hadda tintaada ay daadadasho iyo mataqaana inay ku dheeraadaan inay ku bataan oo kale dhibaato male ma u baahan sawiradaada laakiin hadda dhibaato weyn ay jirto traction alopecia oo kale jirto thinning ay jirto maxaa la ii sheegana diffuse alopecia ay jirto ama alopecia kale noocyada kale ay jirto insha Allah markaas waxaan qofka sawir ii soo diray then we will see where we can go from wiilasha kale especially wiilasha marka intaan ka qafiifaan sharxa batin ah kaga taalo kale sawirkooda marka arko ayaga u sameeya wax u gaara marka waxaan dhahay plenty of water guys biyo badan inaan cabno waa muhiim maxaa la ii sheegana multivitamin inaan qaadano waa inaan qaadanaa maxaa la MSM ka biotin ka daily multivitaminka oo mataqaana dumarka loogu talagalay ama kuwa ragga loogu talagalay kaleeto exercise hadaa sameyn karta good hadaa exercise aad sameynaynin mataqaana massage timaha u badina massageysid oo mataqaana blood flow aad soo badisid dhiig soo soo noqdo dhiig madaxa u imaado insha Allah kadib mataqaana ishigna treatment hadaa u baahan tahay soo waa insha Allah we're gonna treat inshallah together anaga labadayna mataqaana aan wada xiriireyno you guys waxa waaye waa fahmi karaa qofka marayo ilaa heer mataqaana timihiisa ilaa heerkan gaadhay you know I understand walaalahay ani waa isoo martay and I dhowr badanna waa kasoo sheegay qasadaan igu soo dhacday cunugayga saddexaad markaan dhalay it took 5 years 5 sano oo hadda aan kala go'aynin ayaa tinteeda intaasoo kale soo go'aysa maanta wallahi inaan been idin sheegin asbuuci markaan tinta aan iska soo dhaqay gabadhan mujada say tinteeda u hayso intaasoo kale asbuuciga go'i jirtay it was crazy like waa fahmi kartaan soo maha and I was surprised waxaan surprised ku noqday inaan madaxayga tin madaxayga ku taalo gacantaydan mataqaana gacantaydan way buuxin jirtay gacantayda saas markaan dhaho way buuxi jirtay markaas waxaan soo nici jiray musqusha inaan galo timaha soo dhaqo adduunka ugu nacba inaan timahayga aan faraha saaro because saas markaas soo dhawo isoo raaci jireen dhakhtar u tag meel kasta u tag xataa autopsy lagu sameeyo mataqaan tin bay ka qaadeeno autopsy no not autopsy guys what the hell do you call I don't know like tin bay ka qaadeeno soo rujiyano geeyaan dhakhtarko inay soo baaraan nobody could tell me no ninka ugu dambeeya wuxuu yiri alopecia waxa ku ay diffuse and then what nothing we can do it was crazy guys so aniga noqotay inaan research sameeyo aniga noqotay inaan iska kaco hurdado aan research sameeyo this was 2000 maxay ahayd 2000
tobankii ugu bilaabatay because wiilkayga 9 dhalay 2017 ya marka aniga noqotay inaan raadiyo aniga noqotay xoog inaan saanana research sameeyo oo alxamdulillah aniga noqotay inaan tinteedii soo celiyo marka guys madaxayga soo xirnaan jiray you can't imagine it was disgusting subhanallah marka waa in salaam walaalahay inshallah bidmillah alkarim if you like this video like and share subscribe kan ugu soo bir familkeena hadii wax su'aal ah qabto telefonkeyga waa haysataa inshallah isoo wac whatsapp isoo gal inshallah bidmillah alkarim sawir iga soo qaad sawir madaxa iga soo qaad inta si hadda mataqaan dhibaatooyin badan jiraan hadaysan jirin Soomaha aleeda timeygu way daadanayaan way qafiifayeen mataqaan daadashadii ku badatayo mataqaan ama in ay dheeraadaan rabayo yani degdeg igu soo baxaan igu dheeraadaan noocyadaas kala dad tahayna sorry noocyadaas haday kala tahayna inshallah isoo sheeg maxaan la sheegnaa saliidada ana ku soo diray waan ku sheegaa daawada u isticmaalaysid sorry guys daawada u isticmaalaysid ku sheegaya isid adiga ugu habboon insha qof walba si gaar ah u isticmaala iska soo qaad iska marsan maaha marka waa in salaame assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye bye love you guys KC Shire Hair Care waxa waaye daawada ugu horeysa ee Soomaali soo saartay laguna soo saaray wadanka Jarmalka soona ogolaaday wadanka Jarmalka waxaana loogu talagalay timaha daadanayo cambaarta bidaarta cuncunka iyo waxyaabaha la midka waxaana isticmaalay kala rag dumar iyo ilmaba muswarada u jeedaan wadad soo isticmaalay before and after in muddo oo gaaban bad ku arkaysaan isbedel aad u weyn daawadan waa 100% natural ama dabiici waxaana ku jiro minerals vitamins oils essential oils waxa la yiraahdo oo kala duwan isbedelka weyn sida ugu dhaqsiyaa badan ayaad u arki doontaa nagala soo xiriir nambarada ayo informationada oo idinku aad ku arkaysaan shaashada waana in sugeynaa ku soo dhawaada KC Shire Hair Care Company